cambaro oo yaaban ayaa muslimo ku tiri iska waran walaal meeday asli maxaa ku dhacay inaan qolkii gafay ayaan mooday anigoo dib u noqon raba ayaan adiga ku arkay markii muslimo u holatay oo damacday inay cambaro u sheegto asli iyo wixii ku dhacay ayaa waxa si lama filaan ah u soo gashay kalkaaliso cadar oo intay gacanta qabatay cambaro ku tiri eedo asli waxa loo bedelay qaybta naga koreysa qolka 25aad ee orod u tag intii aanay cambaro ka bixin qaybtii daawada ayaa muslimo ka daba timid una sheegtay in asli uur ku soo baxay awgeed loogu bedelay qaybta haweenka cambaro ereygaasi wuxuu oga dhignaa falaad sumaysan oo wadnaha ka abaartay waxaana ka dhacay jeegii caanaha ahaa oo ay gacanta ku siday waxaa qooyay dhidid hadalkiina wuu ka soo bixi waayay alla gablamayay in ay ii saqiirto ayaa la ii qaatay cambaro oo ku barooranaysa ayaa intay kuushi gacanta ka soo qabatay ku tiri na intaad cuntada haweenka jiran u kala qaybisid inakeen gurigay baaye shanqadii alaabta iyo baroortii cambaro ayaa laga maqlay qaybihii u dhawaa oo dhan waxaa dadkii ku soo xoomay goobtii buuqa ka bilaabmay gabadheedii ayaa uur ku soo baxay maxay u ceshan weyday ma gabdhaha waqtiga jooga ayaa haddii aanay iyagu isdhowrin la celin karaa muran ah ayaa dhinac kasta ka yeedhay cambaro oo aad moodaysid in wadkeedii loo soo sheegay ayaa u soo luuday albaabka cisbitaalka oo ay durbadiiba taxi ka raacday kuushi markii ay aragtay in cambaro ka tagtay ayay dib u soo noqotay waxayna u tagtay asli oo markii ay kuushi aragtay naxdin la soo booday iska waran yaa kula socday habaryar cambaro ayaa ila socotay oo meeday albaabka ayay ka noqotay iyadoo barooranaysa ayayna taxi raacday asli warkaa wuxuu gilgilay leebkii hore ugu taagnaa waxay soo cusboonaysaysay urugadii iyo ilmadii waxayna iyadoo hirqanaysa tiri alla see ayaan yeelaa hooyo iyo aabbo way ogaadeen bal yaa u sheegay kuushi oo samarsiin iyo dejin ula jeeda kana naxsan jarribka haysta asli ayaa ku adkaysay in ay dul qaadato iyadoo ku tiri dhibaatada kugu dhacday sanooyin bay kaa weyn tahay sidii alla ka dhigo ayayna noqon cambaro oo meeshii laga saraa aysan dhiig lahayn oo ilmadu ka dhamaatay ayaa gurigii soo gashay iyadoo tagsiilihii keenay uu garabka ka hayo wuxuuna suuban oo reer awjaamac daris la ahaayeen u sheegay in cambaro bastee tahay una baahan tahay in sariirteeda la jiifiyo si ay u nasato suuban ayaa markii ay aragtay diifta ka muuqata cambaro waxay u qaadatay in asli sakaraad tahay ama geeriyootay markaasaa iyadu qudheedoo naxsan intay ku soo dhawaatay ku tiri walaal cambaro maxaa kugu dhacay xaggee lagaa hayaa asli ka waran maxaa dhacay alla iyadoo dhimataa la ii qaatay alla ilaahow ceebtayda astur ayaa cambaro ku celcelisay waxayna ugu dambayntii u sheegtay suuban in asli uur 2 bilood iyo badh ah ku soo baxay awjaamac oo daalan ayaa maqribkii iskaa wax u qabsa ka yimid waxaana la socday saaxiibkii cawaale oo doonayay in uu awjaamac u raaco cisbitaalka si uu u soo booqdo asli awjaamac markii uu qolka soo galay wuxuu arkay cambaro oo sariirta jiifta oo gunuunacaysa markaas buu yidhi naa cambaro maxaa saacadan ku jiifiyey miyaad xanuunsanaysaa oo gabadhii ma aadan u tegin miya awjaamac reer awjaamac ceeb ayaa la soo daristay ayay ku musanawday cambaro waxaana u sheegtay in inantooda uur alle ku saar ah ku soo baxay awjaamac mar kaliya ayaa oogadii ruuxii laga siibay naxdin awgeed sarajoogii buuna ka dhacay waxaana madaxa ka gaadhay jug qafiif ah cawaale ayaa soo orday oo ka qaaday awjaamac dhulkii geeyayna sariirtiisa awjaamac isagoo leh allay lehe wax kastaba aan fishee weligay cindigayga ma gelin asli ayaa ceeb kuu soo jiidaysa adduunow magacaaba tanina ma ii dambaysay